Morgan Tsvangirai wuxuu si aad u soo shaac baxay markii uu si dhiiran isugu dayay inuu la loolamo mid ka mid ah hogaamiyayaasha ugu garashada badan isla markaana ugu naxariista daran qaaradda Afrika. We must give Mugabe a resounding defeat. ninkan oo aan waxbarasho heer sare ah lahayn isla markaana aan ka qayb galin halgankii xorriyadoonka ahaa ee dalkiisa ayaa ahaa inay aad u kala duwanaayeen Robert Mugabe. dibadbaxyadii ballaadhnaa ee ka dhanka ahaa dawladda ayaa waxa uu hogaaminayay isagoo ah xogayaha guud ee ururada shaqaalaha waxaanay noqdeen kii ugu waaweynaa ee dalka ka dhaca tan iyo markiiba xorriyadda qaatay. mar kale ayaa isagoo ah xogayaha guud ee ururada shaqaalaha waxa uu hogaaminayay mudaharaadyadii waaweynaa ee dawladda lagaga soo horjeeday waxaanu jaray xidhiidhkii soo jireenka ahaa ee u dhexeeyey ururada shaqaalaha iyo xisbiga talada haya. Zimbabwe way u bislayd isbeddel inay hesho maadaama lagu hungoobay dal qura oo xisbi kaliyihii ka taliya iyo dhaqaalaha oo wiiqmay. waxaa dhashay xisbi cusub oo MDC la yidhaa Tsvangirai marka la barbar dhigo Mugabe siyaasadihiisii ahaa wada socodka dadka isku afkaarta ah oo keliya isaga tiisu waxay ahayd mid cid walba soo dhawaysa. gudoomiye ku-xigeenka MDC Nelson Chamisa ayaa sharaxaya. The issue of uniting the arrinta ah in la mideeyo bulshada qaybaha u kala duwan ayaa ahayd mid taagan oo madaxweyne Tsvangirai waxa uu suurooday inuu isu keeno ardayda, shaqaalaha, beeralayda, odayaal dhaqameedyada, halyeeyada dagaalka iyo ganacsatada. ZANU-PF oo ka saasay shacbiyadiisii kordhaysay ayaa qaaday tallaabo adag. Tsvangirai iyo taageerayaashiisu waxay u dhabar adeegeen xadhig aan xad lahayn, jirdil, isku daya dilal kharajina iyo dacwado khiyaamo qaran oo lagu oogay. wuxuu markii ugu horreysay doorasho kaga badiyey madaxweyne Mugabe wareegii koowaad ee doorashada. wareegii labaad ee ku-celiska ahaa ayuuse qaadacay waxaanu sheegay inay jireen qalalaase qorshaysan iyo ku shubasho. Morgan Richard Tsvangirai do swear that I will be faithful. dad badan baase ka niyad jabay markii uu aqbalay inuu Mugabe ka hoos shaqeeyo oo uu oggolaaday heshiis awood qaybsiga. Tsvangirai waxaa qasab ku noqotay markaa inuu isdifaaco oo dadka u sheegay inaanay taladu seegin ee uu saxnaa. waxaan heshiiskan u saxiixay maadaama aan rumaysanahay in Zimbabwe iyo dadkeeduba igaga weyn yihiin nabarrada halganka iga soo gaaray. doorashadii sanadkii 2013 ayaa Tsvangirai doorashadii guuldarro weyn u kala kulmay ninkii uu loolanku muddada dheer ka dhaxeeyay. waxaanu sheegay eeda ah ku shubasho hase yeeshee dadkii dhaliilayay waxay ku sheegeen in sumcaddiisii dhaawac weyni gaadhay maadaama uu ka tanaasulay mabaadi'dii xuquuqda shaqaalaha ee u aaminsanaa oo uu door biday nolol raaxa leh oo uu keligii helo. Morgan Tsvangirai uu ku guuldaraystay yoolkiisii ahaa inuu Mugabe xilka ka tuuro hase yeeshee dad badan ayaa ku xasuusan doona inuu ahaa halyey u adeega dadka shaqaalaha oo iimaankii uu ku qabay dimuqraadiyaddu ay sees u noqotay soo afjaridda muddadii taliska Mugabe.